odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta gobolkaasi waxay ku soo saareen baaq ay ku taageerayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo waliba wasiirka arrimaha gudaha oo dhawaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka ay ka keeneen mooshin ka dhan ah xubnahaasi iyagoo lagu eedeeyay wax qabad la'aan muddadii ay xilka ay hayeen magaalada Beledweyne ayaa horey waxa uga dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud warbixinta warkan waxa magaalada Beledweyne inooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Al-Cadaala xilli muddooyinkii la soo dhaafay baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku howlanaayeen mooshinka keenida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan looga soo horjeedo odayaal dhaqameed waxa ay maanta ku qabteen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan odayaasha dhaqanka oo shirkan ku yeeshay gudaha magaalada ayaa kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen mooshinka keenida xubnaha ugu sarreeya dowladda Soomaaliya oo ay baarlamaanku maalmahan ay wadeen qaar ka mid odayaasha dhaqanka oo ujeedadii kulanka ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa xubnahaas ayaga ah madaxweynaha wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha waa saddexda mas'uul ee gobolada dhexe ee ay ka soo jeedaan si toos ah u tagi kara waxna uga qaban kara una shiri kara ummadda dadweynaha Soomaaliyeed si dhabana in wax loo qabto higsanaya horumar dhaba higsanaya saddexda mas'uul waa noocaas waxaan leeyahay marka beegsiga la beegsanayo oo hadafka xildhibaan gaarana lagu beegsanayo si dhabaha loo arko si dhabaha loo hingaadiyo arrinkaas asaga ah taasaan leeyahay waxaan leeyahay ninku hadduu dambiilo noqdo madaxweynaha laga soo bilaabo lagu keeno amniga iyo arrimaha gudaha ninkii dambiilaha waa dambiile qaranka dambi ninkii ka galay ma difaacayna anagu difaac uma ahin waxaan sa dareemaynaa oo ognahay waxba naga maqarsoona saddexdooduba nin shaqadiisa gudan waayay inuusan ku jirin shaqada ay leeyihiin ay gudan karaan dowladnimo ay higsanayaan waxqabad dhaba ay wadaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan la moodaa in seeftooda gosha ay ka baxsadeen kadib markii la xisaabtan adag ay la galeen xubnaha sarsare ee xukuumadda Soomaaliya laakiin arrintan ayaa dadka ku nool gobolka Hiiraan waxa ay ka muujinayaan fikrado kala duwan Cabdirasaaq Al-Cadaala Kalsan TV Beledweyne.